Niger waa dalka ugu weyn galbeedka Afrika, wuxuuna xad la wadaagaa ilaa 7 dal. Waa dal xiran oo ku fadhiya bad ka badan 1 milyan oo kiiloomitir isku wareega. Waa dalka lixaad ee ugu weyn guud ahaan Afrika, wuxuuna u qaybsamaa ilaa 7 gobol iyo caasimadda dalkan ee lagu magacaabo Niamey. Waa magaalada ugu weyn iyo xarunta maamulka, dhaqanka iyo dhaqaalaha ee dalka Niger, waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu kulul caalamka. Warbixinta Qaramada Midoobay ee saadaasha dadka ee sanadlaha ah waxay magaalada Niamey ee caasimadda dalkan ka fadhidaa kaalinta 9aad, gaar ahaan marka la eego magaalooyinka dad ahaan degdeg u koraya, waxaana ku nool dad ka badan 600,000 oo ruux. Magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkan dhacana waxaa ka mid ah magaalada Zinder oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Niger, waxayna dhacdaa dhanka koonfur bari. Magaalada saddexaad ee ugu weyn iyadana waxaa lagu magacaabaa Maradi, waxayna dhacdaa bartamaha koonfureed ee Niger. Waxaa jirta magaalo lagu magacaabo Agadi oo ah magaalada shanaad ee dalkan ugu weyn. Waa mid lagu naanayso albaabka laga galo saxaraha weyn ee Afrika, waxayna ahayd mid muhiim u ah ganacsiga u kala gooshi jiray saxaraha. Waxaa magaaladan laga helaa masjidka Grande Mosque de Agadez oo ah masjid lagu dhisay ciidda dhoobeeda, waxaana masjidkan loo diiwaan geliyay qaab dhismeedka dhoobo ee ugu dheer caalamka. Dhulka Niger 5 meelood 4 meel waa oomane, waqooyiga dalkana guud ahaantiisa waa saxaro, wuxuuna dhacaa saxaraha kulul ee ugu weyn caalamka ama Sahara Desert. Wuxuuna dalkan ka mid yahay mashruuca Great Green Wall oo Midowga Afrika bilaabay 2007, wuxuuna ujeedka mashruucan yahay in dhirayn laga sameeyo ilaa 11 dal si looga hortago saxaraha weyn. Koonfurta galbeed ee dalkan waxaa laga helaa ciidda bacrinka ah ama beerashada ku wanaagsan, waxaana dhanka koonfur galbeed ka mara dalkan webiga Niger oo ah webiga saddexaad ee ugu weyn Afrika. Labada webi ee ka waaweynna waa webiga Nile iyo webiga Congo. Webiga Niger wuxuu maraa dalalka Benin, Guinea, Mali, Niger iyo Nigeria. Isha uu ka soo burqadana waa taagag dhaca Jamhuuriyadda Guinea. Magaca dalka Niger wuxuu ka yimid webigan, sidoo kale magaca dalka Nigeria wuxuu ka yimid oo uu laabanayaa isla webigan. Niger waa dalka 56aad ee ugu dadka badan caalamka, waxaana ku nool ilaa 25 milyan oo ruux. Waa dal bad ahaan ah in ka badan 1 milyan oo kiiloomitir isku wareega oo ay ku nool yihiin 25 milyan oo qof oo kaliya. Waxaana xusid mudan in dalkan uu xad la wadaago dalka ugu dadka badan Afrika ee Nigeria oo xiriir bulsho oo qoto dheer ay wadaagaan. Laakiin dalka Niger waa dalka koowaad marka la eego heerka dhalmada, waxayna celcelis ahaan dhalaan dumarka dalkan ilaa 6 carruur ah. Waxaana la saadaalinayaa in 2041 ay tirada dadka dalkan gaarto ilaa 50 milyan, waxayna tirada dadka dalkan ahayd 1960 ilaa 3 milyan oo qof oo kaliya. Dhanka kale Niger waa dalka 8aad ee caalamka iyo midka labaad ee Afrika ee ugu cayilnaanta yar. Inta badan dadka dalkan waa da'yar, waxaana 15 sano ka yar ilaa 49%. Sidoo kale intooda badan dadka dalkan waa reemi xoolo dhaqato ah, 21% oo kaliya ayaana ku nool dhanka magaalooyinka. In ka badan 99% oo dadka dalkan ah waxay haystaan diinta Islaamka, oo qowmiyadda Hausa ayaa dadka dalkan ka ah 50%. waxaana ka mid ah qowmiyadaha kale ee dalkan ku nool Cherma, Tuarega ama Dawariqa, Fulani, Songhai iyo Kanuri. Waxaana qowmiyadda xoolo dhaqatada ah ee Tuarega ama Dawariqa lagu tilmaamaa midii ugu horeysay ee degtay dalka Niger. Marka laga yimaado luqadaha kala duwan ee wadaniga, luqadda rasmiga ah ee dalkan waa luqadda Faransiiska. Waxaa la aaminsan yahay in dhulka Niger ay dadku gaareen 60,000 oo sano ka hor, waxayna Niger intii u dhaxaysay qarnigii 10aad ilaa qarnigii 18aad ka mid ahayd dhowr imbraadoriyadood oo Afrikaan ah, sida Kanin Borno, imbraadoriyaddii Mali iyo boqortooyooyinkii Songhai. Dhammaadkii qarnigii 19aad Faransiiska ayaa bilaabay inuu qabsado dalkan, wuxuuna dalkan si rasmi ah Faransiiska uga madax bannaanaaday sanadkii 1960. Haddaba xorriyadda kadib wuxuu dalkan durba la kowsaday nidaamka ligitalis ah kadib markii uu madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkan Hamani Diori uu aasaasay hal xisbi oo ligitalis ah, wuxuuna xukunka hayay ilaa 1974. Waa dal soo maray afgambiyo iyo dagaalo sokeeye, waxaana taariikhda dalkan ku xusan abaaro daran oo in badan oo dadka dalkan ah galaafteen. Waxaana haatan dalkan madaxweyne ka ah Mohamed Bazoum oo xafiiska la wareegay bishii Abriil ee sanadkan. Doorashada uu madaxweynahan ku soo baxay waxaa si weyn loogu amaanaa Mahamadou Issoufou oo madaxweyne ka ahaa dalkan 2011 ilaa 2021. In 2 jeer la doortay, ogolaadayna inuu xilka ka dego halkii uu ku mashquuli lahaa inuu dastuurka bedelo si uu u sii joogo kursiga, ayuu ku mutaystay
$5 milyan ama abaalmarinta Ibrahim Prize oo la siiyo hogaamiyaasha la yimaada dowlad wanaagga ama kuwa qabta doorasho xor ah ayagoo ixtiraamaya muddada ay xilka hayn karaan ee uu dastuurku u ogol yahay. Calanka dalkan wuxuu ka kooban yahay dhibic oranjiya oo u taagan qoraxda iyo 3 midab oo kale. Midabka oranjiga wuxuu u taagan yahay dhulka waqooyiga iyo bariga ee dalkan ee saxaraha ah. Cadaankuna waa mid matalaya daahirnimada iyo dambi la'aanta, halka midabka cagaaranna uu u taagan yahay dhulka dalkan ee cagaaran ee beeruhu ku badan yihiin. Calanka dalkan wuxuu u eg yahay calamo kale sida calanka Ireland, calanka Ivory Coast, iyo calanka India. Niger waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka, sida UN-ka gaar ahaan UNDP ay sheegtayna waa dalka ugu horumarka liita caalamka, wuxuuna dalkan alaaba la tacaalaa abaaro daran. Niger waa dalka 6aad ee uranium-ta ugu badan soo saara, waxaana xusid mudan inuu Mareykanku ku eedeeyay Saddam Hussein in dalka Niger uu ka soo iibsaday 500 oo tan oo uranium ah si uu uga hormariyo hubka nuclear-ka, taas oo ahayd marmarsiyo uu Mareykanku ku doonayay burburinta Ciraaq. Dalka Niger, Benin, iyo Burkina Faso waxay wadaagaan halka lagu magacaabo W National Park. Waa goob la moodo xarafka W ama W, waxaana lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. Waa meel gabaad u ah duurjoog badan oo halis ugu jira inay dabar go'aan, waxaana laga helaa tirada ugu badan ee maroodiyaal ah. Sidoo kale dalkan waxaa laga helaa goobta dabiiciga ee la ilaaliyay ee ugu weyn caalamka, waxaana lagu magacaabaa Air Antineri Natural Reserves. Waa dhul ku fadhiya ilaa 7.7 milyan oo hektar, wuxuuna koobsadaa muuqaal dhuleed oo dabiici ah iyo noocyada kala duwan ee dhirta iyo xayawaanka. Waxaa la sheegaa in dalkan uu ku noolaa dinosaur magaca dalkan la siiyay oo lagu magacaabo Nigersaurus. Waxaa lagu sheegaa inuu ahaa xayawaan dhirta cuna oo dhulka ku noolaa malaayiin sano ka hor, waxaana sida ay sheegtay Natural History Museum xayawaankan lafihiisa laga helay Niger, Algeria, iyo Tunisia. Waxaa ka jira dalkan dabaaldeg lagu magacaabo Keur Saleh oo isugu yimaadaan dadka xoolo dhaqatada ee Tuareg ama Dawaariqa iyo Wudaabe. Wuxuu dabaaldegan ka qabsoomaa tuulo ku taala waqooyiga dalkan oo lagu magacaabo Ingal, wuxuuna dabaaldegan qabsoomaa kadib xilli roobaadka. Waana dabaaldeg ay dadka xoolo dhaqatada ku kala warqaataan isla markaana ku soo bandhigaan dhinacyada kala duwan ee dhaqankooda. Sidoo kale waxaa tuulada Ingal ee dalkan lagu qabtaa tartanka dhaqan ee lagu magacaabo Gerewol, waxaana tartanka Niger la wadaagaan oo lagu qabtaa dalalka Chad, Cameroon, iyo Nigeria. Waa tartan lagu yaqaano qabiilka Wudaabe ee ka tirsan qowmiyadda ballaaran ee Fula. Ragga ugu quruxda badan ayaa ku soo labista dhar dhaqameed la sharxay, waxayna wejiga marsadaan waxyaabo dhaqankooda ah. Kadib saf ayay galaan waa ayna ciyaaraan isla markaana heesaan si ay u soo jiitaan gabdhaha yaryar ee guurka u diyaarsan.